نوفمبر ومالين هو أسئلة معلمينك صوماليين. رنانت معلمك إن الله بلي ما تقاد بأموري sababtoo ah macalinka waa qofka soo saara duuliyaha injineerka dhakhtarka xildhibaanka wasiirka ilaa madaxweynaha marka waa mashiinka soo saara aqoonyahanka marka aad macalinka waagi hore aad baa loo qadari jiray zamankii asxaabta hadallo waxaa jiray aad looga hayay salafka iyo qaar ka mid a qolofada tusaale sayidina cali radiallahu canhu qoraal laga hayaa jirto oo ah man callamani xarfan sirtu lahu cabdan inkastoo ay dembi tahay in addoon loo noqdo laakiin qoraadaas waxaa laga qaadanayaa makaanada iyo martabada uu joogay macalinka xilligaas runtii macalinka haddii uuna diri lahayn qof wax qoro wax akriya muuna diri lahayn lowla almucallimu maa qara'a qaari'un ولا كاتب يكتب في الأوراق مدري الآن مركب معانك وحاواي قفك وقيمها بدن برشدة وقفك الله يعلم جاهلية ومدنا براء علمك باهية علمك مركب لها الله صومالي مركب أصول الله معلمين تنقاد وبهدرين وحارك سادة وزارة الشقيق ومشاركة وكبرين يعطوا بقول macalinka Soomaaliyeed maanta $100 ku qoran marka waxaan ka filayaa dawladda Soomaaliyeed iyo dhammaan hay'adaha iyo qof walba oo daneeyo macallimiinta in xaaladaas wax laga bedelo aad baan u daneelayaan marka insha Allah taala mar labaad hambaliyo macallimiinta ma niyadjabi doonaan insha Allah waana sii wadi doonaan waxbarashada dadka u hayaan insha Allah taala mar labaad hambaliyo 22 November maalinta macalinka Soomaaliyeed